ciidanka Soomaaliland wuxuu xoog u leeyahay awood wuxuu u leeyahay 24 saacadood inay ku qabsadaan Laascaanood waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliyeed ee jooga geeska Afrika ama Soomaaliya jooga iminka qolada eray Soomaaliyeed tagtay Hargeysa iyo qoladan madaxweynaha iminka jooga Soomaaliland iyo Maxamed Kaahin iyo Janaal Caydiid Ilaahay oo naxariisto waxaan arkay oo halkan aan bulshada uga sheegay dad laha hawiye isaaq mar haddii daaroodo laha hawiye isaaq oo walba isnabca haddaan soo golaysiinay haddii calankii isaaq waa annaka calanka Soomaaliya waxba naguma sameyn hawiyana waxba naguma sameyn hawiye waxa aan ku shuraakownay inaanu fidno dawladii Soomaaliya Janaal Caydiid Ilaahay qabriga uu nuriyo su'aasha Allah u fududeeyay anagu Janaal Caydiid baan isku kaashanay isku jaabadahay isku waxa weey meel ka soo wada jeestay isku tala ahayn iminkana hawiye ma nabcin mana nabcaan doono iminkana waxa weey Mareykan iyo Ingiriis iyo Jarmal iyo midowga Yurub waxaan isku nahay midowga Yurub oo eray Soomaaliland oo iminkana xildhibaanka la yiraahdo Faarax qorigiisa wax leeyahay uu qabto wuxuu ilaahay dilina qorigi waa kana hooyo ay qabta waxa weey dhaqan ma aha qof soo duulay oo dagaalamaya oo inuu dhinto ku soo tala galay oo in la qabto ku soo tala galay oo inuu waxa weey wax dila ku soo tala galay inuu isagoo nool oo xariiq qaban in la qabto dhaqankii Soomaalida ay baahan jirtay ciidanka Soomaaliland dhimashadiisuna way yar tahay waa ciidan dagaal kale uu dhintay malihi ma dhiman laakiin dhimashadiisu way yar tahay dhaawiciisuna waa yar waayo yeesiyada ciidanka Soomaaliland waxaan lagu garaacin hoobiye BM madfac ayaan la dhicin waayo ma haystaan ciidanka la qabtay ilaa dhowr iyo 20 ciidanka laga qabtay ciidanka huwanta ninkastoo la soo bandhigay 17 haddana anigu sidan xogogaal ku hayo markii dambe dhaawacyada la ururinayay dhaawac dambe la helay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta marka hore waxaan salaamayaa halka salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa dadkan ka soo jeedo reer Soomaaliland waxaan iyo qarxadda ayaan salaamayaa qoladan YouTube-ka aad iyo aad baan u salaamayaa dhamaantood waa run shalay dagaal culus baa ka dhacay 3 meelood baa dagaalkaas ka dhacay galbeedka waqooyiga iyo bariga saddexdaas ba sida la sheegayo barnaamijyadu ama markaan wareystay goobtii wareystay xogogaal doonay 100% waxa guuleystay ciidanka Soomaaliland baabuurta laga hayaa waa 6 teknika iyo 2 mid saasiday iyo mid fasaasiday 8 gaari 4 gaarina way gubeen 12 ka gaari ayaa ciidanka dib soo gaadhay huwanta dhaawac badan oo la soo bandhigay iyo qaar aan la soo bandhigino hore loo sii qaadaba way jiraan meesha dagaal baa ka socda dagaalkana waxa wada garaadada dalka nabadda yimi dagaalka ku bilaabay shirka ku bilaabmay dhibaatada ku bilaabmay dagaalkana waxa weeye dhinaca kalena dhimasho kale way jirtaa Soomaalilandna dhimasho way jirtaa iyo dhaawac taliye Faysal Cabdi Bootaan oo la isla dhaxmarayo waa dhaawac waxa la wax ka jira ma jiraan taliye uu hadlay saaka isagoo ka warbixinaya saaka nabadgelyada Laascaanood iminka waxay u taagan tahay dagaal la doonayo in la soo afjaro xukuumadda Soomaaliland waxa madaxweynaha qaranku bixiyay in la soo afjaro dagaalka Laascaanood oo labada qaybood ama qaybta huwantu qabsato ama Soomaaliland qabsato oo lagu kala adkaado marka waxaan leeyahay dagaalka waxa guushu raacday ciidamada Soomaaliland waxa guushu raacday ciidamada qaranka oo ciidamada qaranka waxaan arkay qola ka hadlayso meesha la yiraahdo jidka dhexe ilaa Guumeys ilaa ari cadeeye tuulooyinka Tuulo Sabakaab ayaan jidgooyo ka galay halkana waxa jooga taliyaha ciidanka qaybta Laascaanood taliye gacmo yare waxaan leeyahay dagaalkaas oo dagaal 10 laga bartay buu ahaa dagaal aad u qadhaadh buu ahaa iminkana dagaalka tuuriya jirta madaafiic labada qolada huwantu waxay haystaa iyada hoobiye madaafiic ma haysato qolada madaafiicda haysta ama BM ka haysta waa dawladda Soomaaliland
dowladna lagama guuleysto dowlad lagama guuleysto dagaalkana waxaan ogaaday markaan wax badan baadhay sidaa laga helay gobolka Saraar oo baadhistiisa lagu jiro in qurba joog iyo qulqul joogba daarood uu ku tashaday shidaalka ayaan Somaliland alfan sool buu ku jiraa shidaalka inagu in la soo baxno aynu ku dagaalano dagaalka ilaa aynaba aynu wadno ilaa aynaba aynu qabsano aynaba markii hore 60kii ay lahaan jireen dhulbahante iminkana ay habar jecel degan tahay ciidanka la qabtay ilaa dhowr iyo 20 ciidanka laga qabtay ciidanka huwanta ninkastoo la soo bandhigay 17 haddana anigu sidan xuquuqaal ku hayo markii dambe dhaawacyada la ururinayay dhaawac dambe la helay dhowr iyo 20 dhaawac la hayaa dhimashaduna adigu aad fahmi kartaa dad madaafiic la dhacayo hoobiye la dhacayo saddex meeloodna dagaalka ka galay dhimashadooduna way fara badan tahay ciidanka Soomaaliland dhimashadiisuna way yar tahay waa ciidan dagaal kale uu dhintay malihi ma dhiman laakiin dhimashadiisu way yar tahay dhaawiciisuna waa yariya waayo iyada ciidanka Soomaaliland waxaan lagu garaacin hoobiye BM madfac ayaan la dhicin waayo ma haystaan waxaan arkay hub badan oo qoryo badan oo ay ka yaaceen oo dabada ka tuureen waxaan arkay maxaabiishan waxba qabin oo aan dhaawac ahayn oo dhibi gaadhin aan la qaban waxaana ceeb ku ah dadka qaranka dhane waxa weeye soo duulay ee Soomaaliland ku soo duulay ee qaarna qoriga tuurayaan qaarna iyagoo nool qoriga ay dhiibayaan odhanayaa dilin inta kor u qaado imka ninka xildhibaanka la yiraahdo Faarax qorigiisa wax leeyahay uu qabto wuxuu yiraahday dilin qoriga waa kana hooyo ay qabta waxa weeye dhaqan ma aha qof soo duulay oo dagaalamaya oo inuu dhinto ku soo talagalay oo in la qabto ku soo talagalay oo inuu waxa weeye wax dilo ku soo talagalay inuu isagoo nool oo xariiq qaban in la qabto dhaqankii Soomaalida ay bay ahaan jirtay laakiin waxaan leeyahay waxa baa inta laga soo gudbo dadkan wada degan sool iyo Sanaag ay wax la yiraahdo ma jirtay iyo Buuhoodle waa dad wada dhashay waa dad walaala waa dad ehela dadka wixii dhintay waad ogtahay Muqdisho waxa ka dhacay dagaal aad xun milyan baa ku dhintay ilaa imika dhimashadu ka dhacda haddana inta waxa weeye wixii daanta yeelana daata qaado nabadun baa ka dambaysa wixii dhacay anigu waxaan ku talin lahaa garaadada aan kula talin lahaa garaadada soo duulay sool waxaan ku talin lahaa wadan nabada baa timaadeen anigu marka la saano timaadeen waan joogay wadan nabada baa timaadeen horumar ku socda waxa weeye shaqo aad u fiican oo ka socoto Soomaaliland u dadaalayso waa cashuurta ay ka qaado Burco Berbera Hargeysa lagu dhisayo laasanood waxa laga qoday ilaa xudun ilaa haysi 40 ceel baa lagu qoro cilbiyooda Soomaaliland baa qoday iskuuladii dugsigii sare dugsigii dhexe ayaa la sameeyay Soomaaliland baa sameysay dhakhtarkii lahayn hoobiya ku dhacay Soomaaliland baa sameysay Soomaaliland gobolka Soomaaliland dulmiga ka gashay baa ayaa sool ku dhacay waayo tog dheer looma qabto laasanood sida xilli isaga saaro sida waxa loogu qabto sida loogu hagar laayahay laasanoodna intii Soomaaliya laga qaxay gobolada Soomaaliya oo dhan markii laga maqaxin wana ogtiina madaxweynaha Soomaaliya ugu daacadsanaa baa lagu dilay akoonkay u taalay inay qaxdo oo qaxani wax ma aha saawsi weyn oo Soomaaliya oo dhan baa laga qaxay magaalo kasta laakiin iyadu waxay ahaayeen ciidamadii siyaad barigu hogaaminayay kuwii daaroodiyay maalintana waxay leeyahay daaroodiyay maantana waxay leeyahay daaroodiyay annagu malihin yaa saaqahay يا ريت Soomaaliland hay anagu waxaan leenahay laga daayo ya daaroodiyay laga ma deyn karayo imka waa lagu galo waa arkayseen xildhibaanadii Puntland baa la qabtay ciidankii BF ta la qabtay ciidankii kale waxa weeye SCC da la qabtay waxaan leeyahay maanta garaadada waxaan ugu baaqayaa ku soo duulay dadkooda masaakiinta ee danyarta dad nin walba wuxuu ku tabcaa dadka isagu dhalay ubadkiisa iyo reerihiisa dadka ku tabci lahaayeen nabad u raadin lahaayeen horumar u raadin lahaayeen ayay ku soo duuleen oo ay qaxiyeen maanta ay qoxoontii yihiin cidla ku soomayaan roobka cidla ku helayaan oo gaalo aan waxba u haynin oo muraado badan kale ay qoodinayaan
waxaan garaadada ugu baaqi lahaa daarood ama dhulbahanta in badan buu soo kubtay aadan galeydh buu ahaa waxa weeye adduuna qatal waxa weeye kabaal baa isku disheen waa kabaal waana kabataan sayidkii baa lahaydeen dhulbahanta in badan ilaa 60kii ilaa 70kii ilaa 100 sano way dagaalamayeen way soo mareen dalka xukunkiisa way soo mareen waxaan leeyahay nabadgelyo la qaato oo wixii ciidan ka dhintay iyo wixii Soomaaliland ka dhintay wixii dheeraad madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland baa bixinaysa wixii dibadhisay magaaladana waxa bixinaysa xukuumadda Soomaaliland wixii dhaawacana waxa bixinaya xukuumadda Soomaaliland iyadoo aan xaq u ahayn haddana aanu ka dhigayna madaxweynaha Soomaaliland inuu bixiyo waxa laale wixii nabad lagu helayo waxa la xukuumadda Soomaaliland raadi dadka meesha ku dhimanaya waa dadkii reer Soomaaliland dadka meesha ku dhimanaya waa dadkii Soomaaliyeed waxaana la reer Soomaaliland gacmaha la isqabsado nabadgelyada meel looga soo wada jeesto nabadgelyaha la baadi doono hadii la waayo waxa weeye colaada meel looga soo wada jeesto iyo difaaca qaranka Soomaaliland waxa diidaya adduunku xad baa la dhigay sidaad ogtay UFD waa Kenya Soomaali baa intuu waxa xukuumay madaxweynaha Kenya waa ogtay kililka shanaad waa Ethiopia waa Soomaali oo anigu waxaan arkay ninkii isagoo calanka Soomaaliyeed ka taagan yahay dhashay waxa diidaya adduunka Afrika xad bay kala leeyihiin waxaan ugu kara xadka Soomaaliland bay ku jirtaa Ingiriiskii baa xad ka dhigay Talyaanigiina xad buu lahaa waa xadka Soomaaliya u dhigay Soomaalilandna u dhigay markii gumaysiga uu ka kacay waxa weeye Ingiriiskii Soomaaliyana uu ka kacay waxa weeye Talyaanigii marka waxa dadka Afrika ka ugu jira adduun weynaha midowga Yurub khadka ugu jira waxa weeye dhulbahanta reer kale midunba maanta waa dawladda Soomaaliland lama dagaalami karaan inay daarood iyo ogaadeen la noolaadaan oo raacaan iyo mareexaan maanta u soo gurmaday inay qaataan dawladnimada iyo xukunka Soomaaliland awood qabsina ay sameeyaan waxa laala waxay doonayaan ay kale ka hadlaan kana sii mid ahaadaan dawladda Soomaaliland labada mid baa weeg waxaana u dhacay baan ku sheegaya ma jeerteen bilaash uma dagaalamayo daaroodisiyan bilaash u dagaalami maayo waxay u dagaalamayaan calanka Puntland in laga taago Laascaanood guumeys tukaraq ayay u dagaalamayaan waxaan anigu ogo xogagaalahay nin baa habeen farka taagay baa la guriyo hayba fartaag baa leeyahay waxaan ogahay gudahooda intay istileen in shan ku kala dhimatay oo leeyahay calankan khaatumaha sidataan laga dhiga oo calanka Puntland weyna taagtaan oo gudahooda shan ku kala dhimatay ayaan anigu ogahay muraadka ugu weyn ay ma jeerteen ay kale yihiin dhulbahantana hiil walaal maaha waxa weeye waa inay noqoto meeshaasi Puntland waa talabaade dawladii siyaad bare hadii daaroodiyo wax leeyahay jirto Abdullaahi Yuusuf Axmed baa riday oo koobka ahaa iyo qoladan madaxweynaha imika jooga Soomaaliland iyo Maxamed Kaahin iyo Janaal Caydiid Ilaahay oo naxariisto waxaan arkay oo halkan aan bulshada uga sheegay dad laha hawiye isaaq mar hadii daaroodo laha hawiye isaaq oo walba sanabca hadaan soo golaysiinay hadii calanka isaaq waa annaka calanka Soomaaliya waxba naguma sameyn hawiyana waxba naguma sameyn hawiyo waxa aan ku shiraakoonay inaanu fidno dawladii Soomaaliya Janaal Caydiid Ilaahay qabriga uu nuriyo su'aasha Allah u fududeeyay anagu Janaal Caydiid baan isku kaashanay isku jaabad ahayn isku waxa weeye meel ka soo wada jeestay isku tala ahayn imikana hawiyo ma nabcin mana nabcaan doono imikana waxa weeye Mareykan iyo Ingiriis iyo Jarmal iyo midowga Yurub waxaan isku nahay midowga Yurub oo eray Soomaaliland waxaan u sheegay daarood inaanay soo noqonayn boqor ninka la boqor Daahir Cali Sugna aan Muqdisho gudaheeda ama Boorama ma Hargeysa aan ku caleema saari doono ku aanashumi doono eray Soomaaliland uu maqadis yahay sharci noo diidayana aanay jirin marka horena aan Soomaali weyn diidanayna waxa weeyaan leenahay anagu dawladda Soomaaliland aan doonayna inaan goono sida Djibouti u gooday aan xaq u leenahay maadaama
Soomaaliya inaga badan yihiin kuna dimuqraadiyad ay noqon karaan oo haddii doorasho xalaal la gala dee anagu aan noqonayno marka dadka Soomaaliya ugu yar baan noqonayno sidaa darteed aan go'aansanay inaan noqono Jamhuuriyadda Soomaaliland anagu horta marka hore dawladda Soomaaliland waa dawladii nin kaliya ka amar qaadata taliyaha ciidanka madaxweynaha qaranka taliyaha labaad waa taani taliyaha saddexaad waa Cali Barre taliyaha afraad waxa weeye nin kaliya Faysal Cabdi Bootaan iyo Inaan Baashi ciidanku ma diri karaan qof ciidan oo la qabtay kii soo ridayay ee xabadiisa isagoo xabada ridaya la qabto sharciga ciidanka tababarka la siiyay waxa weeye in maxbuuska la badbaadiyo hadduu dhaawac yahay gooba dhaawac la geeyaa sida askariga Soomaaliland loo daweeyaa la badbaadiyaa laakiin waxaan media ka arkayay qofaan u maranayo inuu shicibha oo maawishitay inuu askariga Soomaaliland aanan jeclayn shacab inuu ahaan jeclahay reer Soomaaliland oo dadkii waraabinaya ciidanka ama askarta daba socday siinayay biyaha iyo sharaabka iyo wixii u baahnaayeen oo isagoo dhaawac ay qabteen ciidamada SSC ama ciidamada Mauritania oo lagu dhaawactay baaskoolad meediahana uu yaalo lana aqoonsaday cidii baaskoolada ay ku dhuftay ana arkayseen ciidamada laga qabtay Mauritania ama maamulka huwan sida loola dhaqmayay iyo kulligood baa in la yiri ka warramay sida la yiri dhaqmay si fiican loo dhaqmay marka horena waxaan ku kala duwanahay ciidankana waa ciidan bila maamula bila talaa bila waxa weeye waa dad soo ururo aan wajiyadooda iskaraneen habeen kasta iyaga istilo gudahooda meedka u yaala laakiin ciidanka Soomaaliland waa ciidan tababaran shuruuc leh waxa weeye darbi adaga aan cid marayn u tababaran sidii cadawgooda ula dagaalami lahaayeen madaxweynaha Soomaaliland isagoo ilaalinaya nabadgelyada geeska Afrika isagoo ilaalinaya dadka wada dhashay waxa weeye reer Soomaaliland isagoo ilaalinaya dhiig bilaadan inuu daato amar uu bixiyo ma jirto ilaa imika maalintii dhaweeyay uu tagay taliska guud ee ciidanka qaranka ee Soomaaliland Hargeysa ayuu amar bixiyay ciidanku inay dagaalamaan maalintan waxa laga joogay 3 casho wixii ka horeeyay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu yiri dagaal ma qaadi kartaan waxa ku jirtaan difaac qaran gala difaac xiriirina jooga ha adaato caalamku ha arko adduunku ha arko Soomaaliya ha aragto ummadda muslimka ha aragto inaan ciidanka Soomaaliland dagaal wadin waxaana ku sheegaya anigu laascaanood baan joogay ciidanka Soomaaliland laascaanood buu deganaa cid ku soo duushay waa ciidanka ugaadeen ee ka yimi kilka shanaad waa ciidanka Mareexaan ee ka yimi meesha halkay Mareexaan ku degaan waa ciidanka Mauritania ka yimi waa ciidanka Puntland ciidamada ku soo duulay Soomaaliland Soomaaliland cidna kuma soo duulin waxaan imika aad ogaan doontaa dagaalka ugu dambeeya la qaado waxa weeye talaabada la qaado talaabada waxa ka dhasha ayaynu halkan meel ka wada joogi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo imikana iyadoo aad aragto 4 gaari laga gubay 8 gaari laga qabsaday dhaawac laga hayaa ay yihiin maxaabiistu way yartahay Soomaaliland wax la soo bandhigo maxaabiis anigu aan arkay ma jiro soo bandhig dhaawac ma anigu kuwa ma arag adiga arka laga yaabaa laakiin anigu waxaan arkay dhaawac fara badan iyo maxaabiis fara badan oo TV-ga qaranka wareysanayay waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliyeed ee jooga geeska Afrika ama Soomaaliya jooga imika qolada erer Soomaaliyeed tagtay Hargeysa waa qole situationka iyo Soomaaliland iyo nabadgelyadeeda iyo isdhaxgalka iyo hawsha u socotay laakiin ma ahayn dad nabadeen iyo odayaal oo si official uga tagay Muqdisho imika waxaan samaynaynaa hadaan nahay wax garadka ummadda Soomaaliyeed hadaan nahay uqaasha inaanu sameeyno uqaal iyo madax dhaqameed iyo nabadeen gala oo official oo iskood soo abaabulay oo ka madax banaan daarood iyo isaaq dadka inta kala ah dadka reer Soomaaliland ka madax banaan dadka daaroodna ka madax banaan hawiye iyo waxay aga ku jiitaan ayaan doonaynaa inaan abaabulo waxaan leenahay dhiig la daadiyaa xal maaha waxa weeye 30 sanadood ayaa dhiig daadanayay welina dhiig uu daadanaya waxaan leenahay dadka nabad loo taliyo qolada garaadada waxaan leeyahay idinka ku soo duulay laascaanood
garaad haddaad maqasho waa ninkii caqliga fiicnaa ugaas haddaad maqasho waa ninkii caqliga fiicnaa caaqil haddaad maqasho waa ninkii caqliga fiicnaa dhammaan madax dhaqameedku waxaan jireenay nabadeed nabad ku baaqa nabad ku waxa weeye dadka nabad ugu taliya dadkiisa horumar iyo taliya laakiin garaadada daarood waxay ugu taliyeen dadkoodii inay dhintaan inay ceedoobaan inay qaxaan in gaala quudiso inay waxa weeye qaar guryo la-aan bannaan ay u fadhiyaan ilaa imika qaar inay qaar guuri kari waaye inay ku dhacaan hoobiyaha iyo waxyaalaha laysku tuuraya waxaan leeyahay war caqligu ha shaqeeyo nabadgelyo hala dhaliyo nabadgelyaha la baadi doono sool waa somalilan haddii daarood oo dhan isugu yimaadey haddii soomaali weyn isugu timaado waxaan leeyahay waxba ka qaadi maayaan ciidanka somalilan wuxuu u tababaran yahay dowladaha adduunka inuu la dagaalamo ciidamadeeda waxaan uga baaqayaa dagaalka in lasoo afjaro waxaa lagu soo afjaraya xoog waxay somalilan u leedahay anigu ciidankaan ahaan jiray military armies bileyska ciidanka somalilan wuxuu xoog u leeyahay awood wuxuu u leeyahay 24 saacadood inay ku qabsadaan laascaanood kana dhigaan laascaanood beri baa la degi jiro wataa ayay awood u leeyihiin laakiin waxay eegayaan dhiigga bini'aadanka ee daadanaya hooyadaa barooranaysa Soomaaliya marka hore waa walaalo siyaasadun baa la isku hayaa dhigayso ka sokow isaaq anigu nin habar jeclaa baan in kastaan jeclay isaaqina kala qaado habar jeclayada ciidana maantana waan isnaqaanaa mana dhici karto maanta habar isaaq ma gelin dagaal biyaad maqashay biyaad aragtay baabuur yaa ay soo leeyahay soo fuulay tolaayay isaaq miyaad aragtay waa maya tolaayay reer Soomaaliland ay ka soo kacay miyaad aragtay waa maya annagu waxaan diyaar u nahay aan ku dhameeyo annagu haddaan habar jeclanahay waxaan diyaar u nahay dagaalka inaanu gallo jiidaha hore oo dhan baa noo xidhan ciidamadeedii waa diyaar waxaan ciidanka annaga hogaaminayna Faysal Cabdi Booto waa nin habar jeclaa Ali Barra waa nin habar jeclaa gacma yaro maanta jooga magaalada Sabakaab oo ciidamada bileyska haystay jidkooyada ilaalinaya waa nin habar jeclaa waxaa ka go'an inaan la soo dhaafin laascaanood iyo Garowe inaan la soo dhaafin raallina kama yahayn dagaalkan intuu sii socday madaxweyne Muuse Biixi ayaa dagaalka halka gaarsiiyay oo u turayay dadka soo waxdarkaysay in xildhibaankii la qabtay Puntland kaysay BF tain la qabtay ciidamadii BF tain la qabtay waxaad arkaysay baabuurtooda calankoodii mar haddii la yiri waa Puntland waxaan u arkay ma jeerteen inuu waxa cadeynay ah dadka wala wareysanayay TV-ga qaranku wareysanayay in Cumar Maxamuudki joogo Ciise Maxamuudki joogo ma jeerteen cid kasta ay joogaan gaala jacayl ay joogto macalka waxay doonayeen inay xukumaan laascaanood iyo guumeys yaada iyagoo Puntland haysteen calanka anigu waxaan ahaa rag Cabdilaahi Yuusuf yimi barigii uu ahaa madaxweynaha aniga iyo Agas Maayer Muuse Cabdi Maxamuud Muuse Madoowe 14 baan ahayn odayaala madaxweynaha barigii Eldarad madaxweynaha ka noqon doono waxa markaa calanka Soomaaliya Puntland wuxuu ka taagnaa guumeys ayuu ka taagnaa markaa sidii barigii Cabdilaahi Yuusuf uu haystay calanka uu uga taagnaa guumeys ayay doonayeen ilaa guumeys inay xukumaan muraad kale ay ku leeyihiin ma jiraan waayo dagaalkii dawladii siyaad barama ma jeerteen baa ridaydii oo Cabdilaahi Yuusuf baa rido dagaal la galay taladeeda ugu dambeysay waxa weeye waa nabad taladeeda ugu dambeysay waa nabadgelyo adduunka waa ogtihiin BF maxaa loo jeeday qoladii Itoobiya dagaalamayeen TPLF iyo Itoobiya way heshiiyeen wixii ku kala dhintana waa arkaysay inakuna kuwa kama liidano waxaan leeyahay daaroodka kale ee ku jira Soomaaliland gudaheedana ha iskaga baxeen wax ku la guryahoodii ku laabteen inta dadka reer Soomaaliland warsagaliya dhulbaantii iyo shafqashinina waxaan leeyahay war miiska wada hadalkaan isugu nimaadno aynu tala caqligu ha shaqeeyo dadka inta hadhay la badbaadiyo oo nabadgelyaha lagu soo tabaalabaan leeyahay